السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي مسلمين هو إسلامات ميل أتشوكتان بخير بإذن رجينيا عافمات عربينا وحير كإراهضو أرنتي أيانتان إنو كسعوتي أرنتي سيدا فاليباه إنو سرين تينو صومالين هاي سيدا فاليباه إنو كسعوتي وهنا أبو بكر قلب لدو حيرا أرنتاس نمايو أنو هاولاس مربان هذا الكائر وحيقا آدنا سيدا أنو إسلها هادنا دي هالكا هكو استاكتو لما تشوشينيو أنا قال لي ويديني عرورتي حكيبات قيسي ما أدلا شقيسا ما غير العاكو سيسا أيضو ما بولس به أيضو ما هبركولي موعي طيب أقانا وريا إسلام إذن كابا إيقابضيو وحالي نمبا وحالي رير مية أهبا وحرر انجري دان marka haan kaliyo haysan jiray asa gabar walaashiis baa waxay ku tirnaa ku qabanaa walaalay haanta igu dhiba ii raray marka asagu ma rabo inuu raro walaashiis markaas ay ku tir haantan xaaskiis baa oranaysa haanta kor labada haamad isu rar oo gabadha u dhaamay soo yiri yaa la haanta say tir heblaayo soo yiri heblaayo alla naagtu wuxuu yiri maxay nimaan aqoon taqaan waa walaashiis hadda walaalayaalow alla maxaa dad aan aqoon ee taqaanay gabadhan idinka iga badiya waxa la weydiinayaa lagu soo celcelinayaa caruurta xageegiisii qaar ba iska caytamaya dadka qaar ba iska caytamay waayaa marka horta dadkii qaar waa ka soo hadlay caruurtii waa iyo reerkii waa kuwii soo hadlay kaliyihiina waa ku jiraan sida u malaynayo kaliyahoodii waa ku jiraan lagalama bixin aflagaadadana xaraam lama caayo dadka lama caayo waxba iska soo qoraysiin aniga ima taqaaniin anigu idin ma aqaan yeenaas caay waxaa la yiri haddaad xishoonin waxa rabta samee waa xadiis marka waxa kaloo xadiis kala asnaa qofka jaahilka markuu hadlayo kan cilmiga la waa aamusan hadaa arto qof iska aamusan oo wax kasta korkiisa ku dhacayaan oo qof ilaahay samir u siiyay iyo dulqaad wax aan la heli karin way maanta oo dhan inta sharaftaada iyo cirdigaaga naftaada iyo maalkaaga loo talaabo aad iska dulqaadanayso horta waxa weeyaan waa wax aan la heli karin teeda kale inaga Soomaali hadaan sir ma lihin wax sir la yiraahdaa jirta waxay qofku markuu meel ka shaqeeyo waraaqo saxiixaya waxa ku qoran waraaqaha sir baa ku qoran ma gudbin kartid waxaan inaga macna ina la ahayn ba adduunka macna la leh oo qofku shaqadiisa ugu waayay kara dulqaadkuna wuu yaraanaya teeda kale malihin isu dhimrin iyo isa sugis iyo isu dulqaadasho iyo xataa wax yar ma xiirino qofka waa loo dhamaynayaa salka laga maraya waxaan arkay horta wax dad badan oo caytamaya way jiraan sidii marka anigu kulay ila ahaydna wax u badnaayeen dumar marka xishoodku wuu wanaagsan dumarku adduun iyo aakhiraba sidii la inoo sheegay aakhira xitaa hadii la soo fiirshay dumarka ba meesha kulleed ka buuxa leeyir alla inoo sheegay aakhirana ayaga u badnaa adduunkana waxaas ina haysta marka intii adiga qof dumar adoo ah dhibka horta bal adiga adduun iyo aakhira ku haysta sababtu ku haysto inaad ka fikirtaa fiican inta ka fikiraysa ina qof caydo ta qof aflagaadayso waxa ku fiican in adduun iyo aakhiradaada u shaqaysatay oo qof bili aadan teed kale waxa la hadal xun nabadna waa ka kaxeeya colaadna wax kaaga ma taro waxa kale oo la yiri qof ciid kugu rogay calooshiisu ku tusay waxba kuma yeelin horta maanta oo dhan qofka wax ka tagaan baa dhib qaba waayo qofkan lama dilayo lama garaacin lama taaban maanta oo dhan xasanaad baa loo shaqeeyay marka waxba yaanan hadal kugu daalin ama idinku daalin dumarku wax ku mahmahan kor bilseed ka ba isma dheera walaalayaalow gabdhow ilaahay laga boqo aakhira markii la tagana hadii meel
laga buuxay adduunka markii la joogana hawsha u badnayd inagu aynu hayno mid la garaaco iyo mid la kufsado iyo mid guri lagu xiro iyo mid la tarxiilo iyo mid 10 cunug looga cararo iyo tan iyo weligeeday soo jirtay dhibka dumarku haysto asxaabi waxa la yiri saman jaahiligii asxaabtii yaan dhihinay saman jaahiligii carabtu gabdhaha waa aasi jireen markii la weydiiyay walheer gabdhaha maxuu aastaana waxay dhaheen haddii dagaal dhaco waa ooyeysaa oo oohin bay kugu caawinaysaa haddii loo baahdo dhaqaale iyo maartay caawin wax ay ninkeeda ka soo xaday ku siinayso waxba kale ma haysato saasaan u aasaynaa marka qofku sidiisa ama nin ha ahaado ama naag ha ahaadee waxaa wanaagsan inuu isagu ismiisaamo oo isxisaabiyo oo allihii abuurtay uu ka baqo haddii intaa la waayo haddii aflagaadadu waxba ma taraysee ma aragtay hala joojiyo kaad wax sheegaysid waxaan aad sheegaysid horta bal iska hubi wax walba iska sheegin teed kale waxa la yiri beentaada hore runtaada dambe u daranta qofka maanta oo dhan been wareejinaya beenta hal lugay leedahay markii la qabtana bas lug labaad ma leh marka ha iska gubin kaarka been ayaan lagugu baranay iska daa. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.